بسم الله الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أولا مناسبة شرفت بدن أي سوي مادين خيارة فرها بدن كلا جديسن ميرها بدن كلا جديسن كيمي وجوه الريو مضنا مدحوينه إن مصطفى محمد عكشر أما عمر وحكوا السلام يا سلامة الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كبعد وحن لقب شيخ عثمان شيخ عمر شيخ عثمان iyo garaad cabdisaaq garaasofe soo dhaweyntii baahsanayd ee ay wakiilka nagaga ahaayeen ee ay u gudbiyeen madaxweynaha iyo waftigiisa uu hogaaminayo waxaan leenahay soo dhawaada ku soo dhawaada dadkiinii iyo deegaankiinii mudane madaxweyne inta haddii aan ka gudbo ragga nin waliba meel buu u qaybsan yahay bulshada anigu waxaan ka mid ahay cuqaasha deegaankan haddii aan kaftamo cuqaashu waxay u qaybsan tahay deegaankan dhinaca xisaabta marka waa xisaabtamaynaa insha allah bismillaahi kariim horey baan u gelayaa dhinacii xisaabta waxaan ka codsoonaynaa guddoomiyaha danood ee xidhiidhinaya sbiikarka shirka ah mar haddii aanu xisaabtamayno waqti dheer baanu qaadanaynaa insha allah bismillaahi kariim in fursadeeda uuna siiyo taasina waa codsi weeye haddii aan u gudbo hadalka iyagu wuxuu u qaybsami doonaa laba qaybood qayb cabasho ah iyo qayb codsi ah waxaan ku horeynaynaa qaybta codsiga ah qaybta cabashada ah baan ku horeyn doonaa haddaanu nahay mudane madaxweyne bulsho weynta ku dhaqan gobolka doollo degmadiisa wardheer wixii ka soo rogan ee waqooyi uga soo rogan haddii aanu nahay bulsho weynta ku dhaqan degmada danood bari wixii uga soo rogan haddii aanu nahay bulsho weynta ku dhaqan degmada bookh galbeed wixii uga soo rogan haddii aanu nahay bulsho weynta ku dhaqan degmada galxamud galbeed wixii uga soo rogan ilaa iyo xuduuddu meesha ay ku dhammaato dunka qooq dadka intaa degan haddii aanu nahay haddii aan si kalena u dhigana aanu nahay bulsho weynta dhulbahante mudane madaxweyne waxaanu halkan bulshada intaa la eg oo degan dhul cabirkiisa lagu qiyaaso 600 ilaa 700 oo celcelisa bulshadaas oo tiro ahaana dadka lagu qiyaaso nus milyuun haddii aanu nahay bulshadaas dowlad deegaanka soomaalida ee aanu ka tirsannahay kuma lihin wax matalaad rasmiya oo matalaad deegaan ah tusaale haddii aan u soo qaato santarkan aynu hadda joogna ee shaxda buuhooda wuxuu ka tirsan yahay degmada danood hal guri oo aanu ka dhisannay degmada danood ayaa nalaga dumiyey marka calaamatu su'aal degmada danood ma nagu mateli kartaa degma ahaan waxaa la qaba gobolka oo degmadiisa wardheer ay ugu horrayso waxaa la qaba bookh waxaa la qaba galxamud dhammaantood waxa aanu aragnaa haddaanu nahay bulsho weynta dhulka ku dhaqan marka ay wax naga doonayaan sida cashuurta mudane madaxweyne arrintaa waxaanu rabnaa fiiro gaar ah in la saaro dhod inaad saartid si wacanna aad u dhegaysatid insha allah bismillaahi kariim waxaanuna rajaynaynaa inaad dhammaan cagahaga ku mari doontid haddii aan u gudbo mudane madaxweyne deegaanka aanu degannahay waxaa ku yaalla ama ka mid ah 300 oo kilomitir oo xuduuddeenna xuduuddaas oo ah seef laba af leh waxaa ilaaliya oo gacanta ku haya shacabka deegaanka soomaalida ee aanu annagu kow ka nahay ma joogto wax matalaad dowladeed oo ilaalisa si fiicanna waad u garanaysaan siyaasadda afrika ee isbedbedelaysa ee gagadoomaysa iyo tan dalkeennaba waxay ku yeelan kartaa xuduuddaasi saamayn iyo khatar ballaadhan oo dalkeenna oo dhan haligta mudane madaxweyne haddii laga faa'iidaysto 300 kilomitir waxaa ku yaalla
ilaa 30-40 magaalo oo mid waliba ay u dhigato dhaqaale ahaan Wajaale oo kale. mudane madaxweyne cabashada iyadu kolley way badan tahay laakiin ma rabno inaanu gobonimada ka tagno oo aanu lafta jebinno laakiin waxaanu rabnaa inaanu si dhaba u sheegano waxa aanu tirsanayno ama aanu qabno. mudane madaxweyne ma hayno adeegii aasaasiga ahaa ee bulshadani ay xaq u lahayd haddii uu yahay adeegii waxbarashada haddii uu yahay adeegii caafimaadka haddii uu yahay adeegii biyaha haddii uu yahay jidadkii horumarka dalka ka qayb qaadanayay iyo haddii ay tahay maamul daadejintiiba. anigoo ilaalinaya wakhtiga cabashadana in badan ka tegaya oo ugaba tegaya cuqaasha dambe ee odhan doonta waxaan rabaa codsiga iyaga inaan ku soo ururiyo mudane madaxweyne. waxa aanu maanta kaa codsanaynaa haddii aanu han weyn iyo hunguri weyn kuu qabnay in badan sida roobka kuu saadaalinaynay ilaahay subxaana wa tacaala uu noo kaa keenay adiga oo golayaashaada la kaashanaya inaad noogu dhawaaqdid ugu yaraan 1 gobol iyo 4 degmo. si aanu u helo matalaad saxa oo baahidayada ka tarjumaysa si aanu u helo mudane madaxweyne waad og tahay oo dowlad deegaankeennan Soomaalida laysma yiraahdo qolamaa tahay laakiin waxa la yiraahdaa gobolkee ka timi degmadee baad ka timi marka malihin meel aanu ku abtirsanno oo aanu si saxa ugu muujinno walaaqda yar ee ID cardka ee dhalashada la yiraahdo ee mustawqiyaha baa ugu yar haddii aanu raadsano waxay nagu tahay dhib aad iyo aad u weyn iyo mushkilad aad iyo aad u ballaaran. gaadiid baan u kiraysanaa degmooyin kalaanu tagnaa marka aanu tagno waxaa nalagu yidhaahdaa yaa ku garanaya waxay nagu qaadataa inaanu santaradii dib ugu soo noqonno marka waa waxa ugu yar ee dowladda ama shacabku uu xuquuqda ugu lahaa dowladda. marka mudane madaxweyne waxaanu rabnaa inaanu mar labaad iyo mar saddexaadba ku sheegno cod dheer marka nalagu qadinayo saamiga siyaasadda nalaga qarinayo waxaa la yidhahdaa dhulbahanta waa is haystaa isagaan waxba isu oggolayn qoloba tuulay wax la doonaysaa. waxaanu cod dheer kuugu sheegaynaa mudane madaxweyne waxaanu cod dheer kuugu sheegaynaa dhulka cadadkiisu yahay 600 ilaa 700 oo kilomitir ee ay degan yihiin nus milyuunka dadka ku dhow meel allaale meeshii horumar aad gaadhsiisaan gobol hadduu yahay degme hadduu yahay biyo hadduu yahay caafimaad hadduu yahay jidad hadduu yahay iyo maamul dajin hadday tahayba raalli baanu nahay. madaxweyne waxaanu codsanaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba jidadka waaweyn ee horumarka ah ee dowlad deegaankeennan dhex maraya ee soo gaadha jidka soo gaadha gobolka Doollo Wardheer iyo jidka soo gaadhaya Gaashaamo inay soo gaadhaan deegaamadayadan ayaan codsanaynaa si bulshadayadu ama bulshadeennu ay uga faa'iidaysato horumarka iyo horusocodka ka socda dalka. mudane madaxweyne waxaanu taageero hil iyo hooba ah la garab taaganahay ciidamada guud ee qaranka Itoobiya iyo kuwa dowlad deegaanka Soomaalida ee soo celinaya amniga iyo kala dambeynta dalka waxaanuna ka qayb qaadanaynaa bixinta hilibka iyo xoolaha ay cunayaan. waxaan hadalkayga ku gabagabaynayaa mudane madaxweyne deegaanka aan kugu sheegay iyo dadka aanu ku abtirsanay ma laha wax mucaarada dhammaantayo waxaanu ka tirsannahay oo si buuxda u taageersannahay xisbiga hogaamiye talada waddanka ee BB Barwaaqo. waxaanuna jeclaan lahayn in maanta sanaaduuqdii doorashadu ina dhex taallo oo annaga oo ku ridayna indhahaaga aad ku aragtid annagoo ID cardkii ku ridayna xisbiga Barwaaqo oo dhammaantaya u codanayna. madaxweyne waxaanu kaa filaynaa wax ballaaran insha Allah bismillaahi kariim
kalsooni badanna waa kugu qabnaa culays badanna waad naga dulqaaday ilaahay ha kaa dulqaado intayadaasoo kale isuma aanaan shiri jirin guryahayaga ma aanan seexan jirin nin xidhan iyo nin ka baqaya in la xidhaanu ahaan jiray fursaddan aad bixisay ee siyaasiga ah ee dalku ku degay mahad ballaadhan baanu kaaga celinaynaa bayshiksi iyo caam ahaanba ee hadalka noo hadhay cuqaasha dambaa odhan doonta kollay degmooyinka iyo gobolka iyo cuqdadaha dadku ay kala qabaan iyo sidii dawladdu gacan uga geysan lahayd iyo hadalka wixii aan ka tegayba cuqaasha dambaa odhanaysa wasalaam